جعلك سيسكتين جعل وصوت جلي المواد اللي جعل وصوت جلي هاي magaalada intaad joogtay ama intaad qurbaha joogtay waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad la kulantay ama aad aragtay wax ma noo sheegi kartaa wallahi xamar marka imid waxaan la yaabaa dadka guryahooda hortooda bacyaalay qashin wax ayaalay dhagaxaan way adduunka ceeb ka tahay hatta candoof inaa ku tuftid wadada lama ogola qashin hadaa ku tuftid $500 tigidh oo booliisku ku siinaya marka guriyihii oo dhan waxa hor yaala qashin dawladdu ma wax ka qabtaan ee dawladda hoose la hadlaan ay dhahaan qof walba gurigaaga hortiisa iyo geesihiisa nadiifiye qashinka ka qaada dhagaxaanta wadada xireysa sima fargeeto qaata sima dhagaxaanta ka qaada intaas ma garan waayo dawladdu waa la yaabay adduunka ceeb ka taqashin aagaas yariiska hadaa jidka uga tagtid waa la yaabaya waa laga qaadaya hadaa qof ku jeedo booliisku wuxuu ku siinaa $500 waxyaabahaas aan la yaabo aan ku arkay way burburtay dawladda dhaxway burburtay burbur badan oo wadanka soo maray iyaga laftooda dadka kuma baraarugsana arimahaas oo kale marka misleedahay doorkii dadkii ku shaqada lahaa way gaabiyeen iyaga laftooda dawladda hoose way gaabiyeen dawladda hoose ee shaqadooda waxay ahayd xaafad walba inay u sameeyaan dumpster ay qashinka geeyaan waxay ahayd qof walba gurigiisa inuu nadiifiyo inuu geesiisa ceeb ka taa adduunka qashinka duruuf qofku waa hayn kartaa arad uu noqon karaa laakiin qofkii inuu qashin gurigiisa hor yaalo oo iska dul maro ay qof walba iska dul maro aan la yaabaa waxyaabahaas kula yaabo markaad soo laabtay adduunka America ku aqoon haddii aad weyso lacala xilka ra'iisul wasaarnimada hadda hadahminaysa ama rajo badan aad ka leedahay dad badan aad taageero ku ah dad badan kugu rajo weyn maxaan dhihi karnaa musharax barku iska laabanaa mis waad joogaysaa siyaasad kale ama wasaarada kale ayaa wax ka raadinaysa shacbiyadeedu waxay rabaan ku xirtaan shacabka ay taageersan waxay taageersan dhalinyarada dumarka hadda dhow waxa ku soo biira odayaasha shacbiyada haystaan shacbiyadeedu waxay rabaan waxay leeyihiin waa ku baahan yahay wadanka haddii ra'iisul wasaare weysid ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka beeraha ama wasiirka arrimaha dibadda noqo ay leeyahay shacbiyadeeda dhalinyarada taageerayaasheeda taas recommendation ugu siiyaan ay ugu la taliyaan si isku keenaysa wasaaradda beeraha maadaama beeraha arrimaha beeraha ay ka shaqeyso iyo musharax burka aad maxaa lahaa ololaha kamid ah waxay isku burka waxa lagu baxshay waxaan eray waagi siyaad bar 1 milyan hektaar la beeri jiray laakiin 4 milyan 3 milyan ilaa 4 milyan hadii wadanka ku filan tahay cuntada galeydii masagadii qamidigii beeraha ka soo go'ay ayaa warshadan keenaya oo bur u bedelaan saasa burka lagu baxshay markuu iskeenaya cuntada beeraha ka soo go'aysay aan bur u bedelaa burka waxaan ku doortay kun nooc cunta laga sameyn karaa Soomaalida 100 nooc hadii ka samaysato waa ku filan tahay baasada noocyadiisa kala duwan rootiga noocyadiisa kala duwan macmacaanka noocyadiisa kala duwan 100 nooc hadii ka samaysto waa ku filan tahay waligood baahay ma qabanayso hadii 3 milyan hektaar ilaa 4 milyan hektaar la beero baahida inaan ka saaro ugu yimid America maadaama aan ka baxay dugsiga sare beeraha waaya ugu dambeyntii magaalada Muqdisho inta joogtay maxaad isdhii karnaa haddii musharax burka lacala oo xilkaas waayo oo shacabka caadiga sida anagoo kale aad la mid noqoto inaad iska soo degto wadanka mise inaad wadanka ka imaado ku noqoto waxaan jeclahay hadaan waayo inaan iska laabto America ku laabto maadaama waxaas baalki ilmahaygii iyo hooyaday dadkeen oo dhan America jiraan in America iskaga laabta laga yaabaa haddii aan ka waayo waxaas oo dhan waaya ugu dambeyntii baaqa aad u jeedinaysa dadka ku taageera maxay tahay baaqa u jeedinaa waxa waaye Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanayaa inuu si aan wadanka wax ugu qabto maadaama aan leeyahay shacbiyad fara badan oo shacabka taageersan yahay aan jagadii madaxweyne ugu sareysay aan ku haminay aan waayay waxaan ka codsanayaa inuu ra'iisul wasaare iga dhigo aad u mahadsantahay musharax burka waa ku mahad celinaya waqtiga qaaliga adaa mudan abaayo